heshiiska qandaraaska cusub ee Mohamed Salah oo ku dhaweyn lagu dhawaaqo Liverpool oo lagu amaanay saxiixii ugu weynaa ee suuqa January haddaba goorme ayaa lagu dhawaaqayaa muuqaalkan ay ku gul wadaagi doonaa ee soo dhow daawade balse marka hore waxa ka codsanaya inaad agsarto muuqaalka si share kareyso sidoo kale aad ku soo biirto bogeyga Saamil Cadaala haddii aad igala socdo bartay TikTok waxaan ka codsanayaa inaad dirista jir ay daawado calaamada goob linki aad iyo aad ayaad u maasan tahay aniguna waxaan ahay Saamil Cadaala hagaag war wanaagsan ayaa laga yaabaa in dhawaan uu ka soo baxo kooxda kubadda cagta Liverpool ka oo ku aadan mustaqbalka Mohamed Salah iyadoo Reds la filayo in ay dhawaan xidigeeda heshiis cusub ay ka saxiixato isla markaana ay dhameystirto waxa lagu tilmaamay saxiixii ugu weynaa ee suuqa January Salah ayaa qaab ciyaareed aan loo dulqaadan karin ku jooga Liverpool tan iyo markii uu kaga soo biiray Roma adduuntan 36.9 milyan oo kani xagaagii 2017 hase ahaatee heshiiskiisa oo dhacaya dhamaadka ciyaareedkan jamaahiirta Reds ayaa si cabsi leh u sugayay wararka sheegaya in heshiis kordhin loo sameynayo xidigooda iyadoo qaab ciyaareedkiisa uu fiican yahay 30 sano jirkan waxa uu kooxda siiyay 30 gool ciyaareedkan 26 kulan oo ilaa haatan uu ciyaaray madaxda Reds ayaana hubaal ah in aanay wax qiyaali aysan ka qabin muhiimadda ay leedahay in Salah laga saxiixo heshiis cusub iyadoo ciyaaryahanku si weyn u sheegay inuu doonayo inuu sii joogo iyo inuu warbaahinta la socodsiiyo sida uu heshiisu isugu dhow yahay haddana waxaa jirta kalsooni sii kordhaysa ee ah in Reds ay dhawaan diyaar u tahay inay ku dhawaaqdo wararka taageerayaasheeda ay filanayaan oo ah in heshiis cusub laga saxiixo Mohamed Salah haddii heshiis la gaaro goolaayii hore ee England Paul Robinson ayaa aaminsan in ku dhawaaqista ay sare u qaadi doonto heshiis kasta oo kale oo lagu dhameynayo Premier League suuqa jilaalka Mohamed Salah waxa uu noqon karaa saxiixii ugu weynaa ee suuqa Janaayo waxaa teegtaa tamaanshihiisa tirakoobka heerarka waxqabadka ee uu garaacayo ciyaartooygu wax badan ay sii socon karaan hadda Robinson ayaa sidaas u sheegay BBC Sport waxa uu ciyaaraa kulan kasta marka uu taam yahay kaliya waa la bedelay haddii loo baahdo waan la yaabi lahaa haddii uusan heshiis cusub u saxiixin Liverpool ayuu hadalkiisii raaciyay golaayihii hore ee xulka qaranka Ingiriiska Nicolas Ngwawo Paul Robinson Mohamed Salah ayaa si cad hore ugu sheegay inuu doonayo inuu saxiixo heshiis cusub iyo inuu sii joogo koox uu si diyaar ah u qirtay in uu jecel yahay Salah ayaa sidoo kale taa ka qaaday inuu diiradda saarayo inuu hubiyo in Liverpool ay sii ahaato wadada harashada horyaalka Premier League xilciyaareedkan iyo suurtagalnimada markoodii labaad adiga ahaan sidee u aragtaa heshiiska cusub ee la filayo in Liverpool dhawaan ay ka saxiixato laacibkeeda Mohamed Salah aragtida waxay tahay qaybta hoose commentiga ugu rameeysan